si oo fuleynima oo doqonnima oo wuxushnima inay arintan u dhacday waa isgooskii waa dadkii shaqeynayay waa dadkii hilibka gadayay waa dadkii meeshan ku shaqeysanayay meesha waxa ay ka dhaceen waxa way doqonnimo weyn iyo fuleynimo ay arintaas muujinaysaa waxaan rabnaa waxaan sameynay hay'addu waxay sameysay call center oo runtii lagala soo xiriiro waa ognahay dadkii meesha taagan yihiin dadkoodii ka maqan waxaan rabnaa in call center la soo waco nambarada aad arki doontaan oo wariyaasha iyo meediyada la wadaagay waxaan sameynay xarun oo runtii aan ka sameynay emergency center oo aan ka sameynay Banaadir Hospital isbitaalka Banaadir waxaan rabnaa arintaas in lagala soo xiriiro waxaan rabnaa dadka oo dhiig la'aan jirto oo isbitaalada ka jirto waxaan rabnaa dhiigga in lagu caawiyo waxaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo dadka Soomaaliyeed oo ama qurbaha jooga ama dalka jooga culumada inay dadkan u kacaan waa u jeedeen hantida ku baaba'day dadka ku baaba'ay dadka dhintay dadka maqan dadka dhaawacyada oo isbitaalada jooga waxaan rabnaa isbitaalada private-ka waana u sheegnay inaysan dadka aysan cadaadin hay'ad waa la joogtaa markasta inaysan qarash ku dhibin inay weydiinin wixii daran hay'adda mas'uulka ah ida bixinayso laakiin waxaan rabnaa inaanan dadka la dhibin oo dadka loo adeego cidii dadku adeegi diido isbitaala waa la xisaabtamaya annaga sida aan warka ka hayno waxay tahay dhiigagii xalay toole isbitaalada especially isbitaalka Digfeer oo karantood waxaan dhahay dhiigag ugu filan haystaa annagu waxaan sameynaynaa dadkii hadda volunteer-ka ahayd xalay xilli annaga 9 saac meesha ka tagnay dadka volunteer-ka saacadaha ay isbitaalada ku qulqulayaan dhiigag waxaan rabnaa dhiigag dadku waxaan rabnaa inay yimaadaan oo dhiigag la sameeyo bangi dhiig ma qabno ogtiin waxaan rabnaa arrimahaas oo dhan waa ka taxadiri doonaa hay'addu waa ku tala jirtaa inay bangiga dhiigga dib u furto laakiin waxaan rabnaa hadda qaylo yeerta qalab kama tunno in dadku ay noo soo gurmadaan aad iyo aad u maasantihiin hadda waxaad ogtihiin tabarta dawladda dhexe laakiin arrintaas waa ku tala jirnaa hawshaas waa socotaa bangi dhiig oo yarna hadda wuxuu ka jiraa isbitaalka Digfeer bangiga weynayna dibaan furi doonaa haddii Ilaahay iyo emergency center-ki insha Allah haddii Ilaahay shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac talaabooyinkan ku shubo $1 ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jira ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro 9 cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga idahab ugu dambaynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhawaato wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel